xubno ka socda madasha isku tashiga iyo horumarinta degmada Rakaraax ayaa booqday goobaha waxbarasho ee degmadaasi sidoo kalena waxay agab waxbarasho gaarsiiyeen dhismaha dugsiga sare ee degmadaasi oo iyagu hirgeliyeen warkaasi oo faahfaahsan waxa noo haya wariyahayaga Maxamuud Yuusuf Caamir dhalinyaro isugu jirta aqoon-yahan ganacsato qurbajoog ka socotay madasha isku tashiga iyo horumarinta degmada Rako ee lagu magacaabo Rako Community ayaa kormeeray laamaha waxbarashada. Kormeerkan ayaa qayb ka ahaa dadaalo ay madashu ugu jirto horumarinta waxbarashada degmada iyo deegaanada hoos yimaada iyadoo lagu duulayo baaqi madaxweyne gaas ee ahaa isku tashiga Puntland. waftigan ayaa waxay u kurgaleen xaaladda waxbarashada iyo baahiyaha kale ee deegaanada ka jira waxayna kulamo la qaateen maamulka waxbarashada degmada maamulayaasha dugsiyada macallimiinta ardayda waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu dambeyn waftiga ayaa kormeerkoodii ku soo afmeeray degmada Rakaraax waxaana xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay loogu qabtay dugsiga sare ee Axmed Ganay waxayna kaga warbixiyeen waxyaabihii ay ku soo arkeen sidoo kale waxa ay dugsiga sare soo gaarsiiyeen buugaag loogu talagalay ardayda dhigata dugsiga sare ee Axmed Ganay wuxuu ku saabsanaa bal inaanu deegaanada soo aragno muhiimka noogu weyn iyo taymka noogu weyn waxa noo ah priority-ga koowaad degmada Rako baahiyaha bulshada oo ka jira oo ugu horeysa waxbarashada waxa la haysto iyo maaragtay sida looga faa'iideyn lahaa iyo iswaraysi iyo waxa ka dhiman يسيو كلا هريان سهل الله له طريقا إلى الجنة وودينك الأمر جنة يلقوه ونزيله إليه علمه وشيء إنه ديان كاسينو يا ديان ولا إنه يا ديان ضد كسكوت شريان لو كان قبض باهين إنه يا ديان أديجيد وين بشروا بعنتها وأديجيد دولة قرنجي ده وكملتها اسمها تعالى يسكولا دي نذكر إن قيبته ديارين gacansiin arimaas in laga siiyo ay diyaar u yihiin waxgaradka aqoon-yahanka iyo mas'uuliyiinta degmada Rako ayaa soo dhaweeyay ugana mahad celiyay sida isku tashiga ah ay waxbarashada u garab taagan yihiin soo dhawaadaan u leenahay degmadaad u dhalateen weeye tulooyinkeedina waad soo marteen ragga samada tigay waa tacliin waxay ku gaareen tacabka Soomaaliya waa laga tigay samada ragga tigay waxbarasho ku gaareen kuwa gaareen macna wax kale waxaan kaga baxayaa hadalkayga waan idin soo dhaweynaynaa waxaan u mahad celinayaa oo salaamayaa waftiga ballaaran Faarax Umar Faarax maamulaha iskoolka sare ee Axmed Ganay ayaa ugu dambeyn uga mahad celiyay booqashadooda iyo buugaagta ay soo gaarsiiyeen dugsiga sare wuxuuna xusay in loo baahan yahay buugaag dheeri ah si loo horumariyo maktabada dugsiga inaan soo booqday oo nima deegaan oo degmada iyo deegaanka u dhashay ah inaan ugu mahadnaqo inay waqtigooda nagu soo bixiyaan qaaliga oo nala wadaagaan oo bandadkoodii la soo duruuf iyo dan qaybsadaan sidoo kalena wax badan ka soo ogaadaan xaaladda deegaanka ka jira runtii taas waa bilow cusub weey bulshada kale ee deegaankana waxaan leeyahay nin walba ka qayb qaato barnaamijka ololaha maktabada iskoolka Axmed Ganay ninkii buug keeni kara ninkii tala ku darsan kara ma aha markii ugu horeysay ee madasha isku tashiga ee Rako Community wax ka qabtaan degmada Rako waxa socda dugsi sare ay dhisayaan isla markaana hadda maraya meel gabagaba ah Maxamuud Yuusuf Caamir raadiyaha iyo TV-ga dawladda Puntland